السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Tusmo Films. baro sida loo sameysto sida sawir loogu hagaajisto wajiga. waxaa cashirkan idin soo diyaariyay Tusmo Films. fadlan la soco Tusmo Films. follow us on Instagram, subscribe YouTube, Facebook ina like saara. ugu horeynta waxaad sameynaysaa waxaad iska qaadaysaa sawir wajigaaga si fiican u muuqdo at least sidaan camal. kadib waxaad sameynaysaa waxaad u baahan tahay sawir wajigaaga ah. program la yiraahdo Photoshop. Photoshop waxaad ka heli kartaa isagoo 30 maalmood free ah website-ka hoos ku xusan videogan YouTube ku jiro hoostiisa. ku shubo computerkaaga Photoshop. waxaa kaloo u baahan tahay inaad Google ka raadsato calanka nooca doonto inaad wajiga saarato. waxaan sameynaya hadda computerkayga already wuu ku jiraa maxay ahayd Photoshop. computerkayga mar hore ayaan ku shubay wuu ku jiraa. waa kan programku isfuray. programka sidaan markuu isku furo waxaad u baahan tahay inaad tagto meesha aad sawirka gashatay. aniga halkan ayay sawiradeeda ku jiraan. waxaad sameyn kartaa folder cusub ayaad ku sameyn kartaa desktopkaaga si aad u xasuusato sawiradaada meesha ay kugu jiraan. halkaas ayaan ku dhufanayaa. sawiradeeda halkan ay ka buuxaan. waan yareysanayaa. midkaan doono ayaan soo qaadanayaa. waxaan soo qaadanayaa gabadhan. waxaan sameynaya Photoshop oo sida u furan. waan yareynayaa Photoshop. folderkan waan yareynayaa. sawirka ayaan saas u soo qabanayaa. ma sii daynayo ilaa iyo programka dhexdiisa. saas ayaan ugu sii dhex deynayaa. sawirka meesha markuu i galo waan weyneysanayaa. sawirkan ayaan maanta ka shaqeynaynaa. sawirkan sidaan ah ayaan dul saaraynaa calankan doonno. sawirkan waxaan saaraynaa calanka Soomaaliya. ugu horeynta waxaad sameynaysaa halkaas ayaad ku dhufanaysaa. keyboardkaaga ayaad waxaad taabanaysaa Control J. sawirkii ayaad ka dhigaysaa 2 xabo. kan kore ayaad ku dhufanaysaa. waxaad taabanaysaa haddana Control G. group ayaad sameynaysaa. Control G markaad aad taabato halkaas group 1 ka soo baxday ayaad ku dhufanaysaa. waxaad ku qoraysaa mask MASK. markaad ku qorto sawirka layer 1 ku qoranta ayaad taabanaysaa. kadib waxaad tagaysaa image adjustments black and white ayaad taabanaysaa. kadib okay le iska leedahay. waxaad ku laabanaysaa haddana image adjustments levels ayaad ku dhufanaysaa. meesha ugu horeysa waxaad ka dhigaysaa 9. meesha labaad waxaad ka dhigaysaa 1.23. meesha kale ugu dambeysa waxaad ka dhigaysaa 2.24. kadib okay ayaad iska leedahay. okay markaad tiraahdo halkan ayaad imaanaysaa. mask meeshaad ku qortay ayaad ku dhufanaysaa. hoostaas yirista oo koobinta ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato sidaas ayay meesha noqonaysaa. waxaa loo baahan yahay markan meeshan cad inaad madow ka dhigtaa. waxaad taabanaysaa keyboardkaaga Control I. automatically meesha durbadii waxay noqonaysaa madow. waxay ku sahlaysaa sawirkan inaad wajigiisa maxay ahayd aad gebigiisba cadayso oo aad ka dhigto maxay qof dambas wajiga looga dhaqo kale. waxaan sameynayaa marka intaan marayo waxaan imanayaa meeshan brush toolkan ku dhufanayaa. korkaasaan imanayaa. waxaan yareynayaa size-ka brushka. haddaad aragto marna waa weyneyn karaa markaan doonana waa yareyn karaa. halkan ayaad imanaysaa opacity ayaad imanaysaa.
waxaad ka dhigaysaa 80% aad ka dhigaysaa. kadib waxaad imanaysaa halkan zoom, wejiga aad soo dhaweynaysaa si aad si fiican ugu aragto. kadib waxaad sameynaysaa maxay tahay brush toolka ku dhufanaysaa. meeshan waxaa loo baahan yahay si taxadir leh inaad maxay tahay u cadayso. waxaa loo baahan yahay sawirka gebigiisba inaad cadayso, indhaha maahane. saa ayaad u cadaynaysaa si taxadir leh. sunniyaha waad cadaynaysaa, sunniyaha waad cadaynaysaa. inta oo kaliya weeye. maxay tahay waxaa loo baahan yahay wejiga oo dhan inaad cadayso. bishimaha iyo indhaha waad ka tagaysaa iyaga, laakiin meelaha kale oo dhan waa cadaynaysaa. soo ma aragtid? waa kaa way jiraan meel lagu sameeyo maxay tahay wejiga calan lagu saarto sida iTunes-ka, maxay tahay iPhone-ka. waxaa jiro app oo loo yaqaano face flag, laakiin wuxuu ku xun yahay si wacan oo wanaagsan sawirkaaga uma saari kartid wejiga. waxaa taa kasii daran maba hayaanba calanka Soomaaliya. marka sidaa markaad u habaysato waxaad sameynaysaa sawirka waxaad ku diraysaa adigoonan mobilkaagaba computerka ku connect garaynin. Facebook ayaad ku dirsanaysaa. kadib Facebook ayaad waxaad ka galaysaa taleefankaaga. kadib sidaa ayaad uga save garaysanaysaa sawirka. way sahlan tahay. hawshan haddii ay kaala dhacdo way sahlan tahay. sidaad u jeedaan waqti ayay qaadanaysaa. marka waxaa habboon inaad adigu barato intuu qof kale ku sameyn lahaa. intaa waa nagu filan tahay, laakiin adiga markaa sameynaysa waxaa loo baahan yahay sawirka meel walba inaad cadaysid oo aadan ka tagin meelna iyadoo banbanaan. hubaali inay meel walba qarsan tahay oo wada caddahay, indhaha iyo afka iyo bashimaha mooye. intaa waa nagu filan tahay. waxaan sameynayaa hadda zoom ayaan ku dhufanayaa, right click ayaan siinayaa. kadib waxaan leeyahay fit on screen. sawirkii ayaan arkayaa. weli halkaa ayaa waxay iga muuqdaan. brush toolka ayaan ku dhufanayaa. waan sii cadaynayaa. meel walba aan taabanayaa. okay, waa intaa. waxaan sameynayaa halkan ayaan imanayaa. inta ayaan ku dhufanayaa. kadib waxaan tagayaa folderka ayaan tagayaa. calankii aan u baahnaa waxaan idhi waxaan isticmaali doonaa calanka Soomaaliya. calanka ayaad soo jiidaysaa, kama foqaysid, ma dul saaraysid, laakiin korka ayaad asna gees ka dhigaysaa. waxaa furmaayo maxay tahay option kale ayaa furmaayo. sawirka halkaas ku jiraa, calankiina halkan ayuu ku jiraa. waxaad sameynaysaa selection, control A ayaad taabanaysaa. sawirkii oo dhan waa select gareewaya. kadib waxaad sameynaysaa control C ayaad leedahay, waa copy.
markaad koobiyeysid uma baahnin maxay ahayd boxka inuu furnaado. waxaad ku xiraysaa control W uu naga xirmay. kadib waxaad sameynaysaa halkan aad ku dhufanaysaa control V ayaad taabanaysaa. sawirkii automatically waa ka gabadha wajigeeda ayuu soo galayaa, laakiin maxay ahayd ma ku habaysna oo si aragtan xidigtii halkaas ayay taagan tahay. marka waxaad ugu habeynaysaa keyboardka ayaad waxaad taabanaysaa control T. control T waxay ku sahlaysaa sawirka inaad qabato oo meesha doonto aad u leexiso ama aad yarayso oo aad ku hagaajiso meesha ku haboon. meesha isleedahay uu ku haboon yahay adiguba qasab mahanisa u sameynana u sameysid meesha adigu kula haboon ayaad ku dhufanaysaa. weli afka ay halka kaga jiro. marka waxaan sameynayaa kor ayaan u jiidayaa. haddaan doono waan qalloocin karaa halkan saa ayaan dhihi karaa, kadib waan yareyn karaa. saa okay waa indhahana kagama gelinin, afkana kagama yaallo. marka waxaan sameynayaa halka ayaad ku dhufanaysaa tick ayaad siinaysaa. weli waxbaa iga qaldan halkaa. marka control T ayaad taabanaysaa. haddana cadkaas uma jeedo waxaa la leeyahay waa inaad qarisaa cadkaa. saa ayaa ku haboon. okay tick ayaad siinaysaa. markaad tick siisid inta ayaad imanaysaa. waxaad leedahay halkaas ayaad ku dhufanaysaa normal way. hadda waxaad ka dhigaysaa multiply ayaad raadinaysaa. waa kaa multiply marka dhahdeed automatically sawirka si fiican ayuu wajigu ugu ahaanayaa in lagu huruudeeyay oo kale. halkan aad ku dhufanaysaa waxaa leedahay control J marka dhahdeed kan iyo kan maxay ahayd laba ayay noqonayaan. kan kore waxaa u bixisaa maxay ahayd waxaad u bixinaysaa maxay ahayd multiply ayaad leedahay. waxaad u bixinaysaa kan kore waxaad u bixinaysaa laba ayay noqdeen. marka kan kore waxaad u bixinaysaa dul saar. kan labaadna waxaa u dhex bixinaysaa multiply. kan dul saar ayaad ku dhufanaysaa. waxaad leedahay overlay ayaad ku dhufanaysaa. sawirka saas ayuu noqonayaa. halkan ayaad imanaysaa overlay geeska macnaha kasoo horjeedkeeda opacity waxaad ka dhigaysaa 20% aad ka dhigaysaa halkaas. opacity 20 markaa ka dhigto opacity markaad ka dhigto 20 waa soo jiidaysaa. hoos ayaad keenaysaa. kan kale hoostiisa ayaad keenaysaa. multiply ayaa dul maray. multiply asagana waxaad ka dhigaysaa opacitygiisa 80 ayaad ka dhigaysaa. asaga 80 bas. marka sawirka hadda si fiican ayuu noogu soo baxay, noogu soo muuqday. marka intaad samaysid waxaad u baahan tahay inaad u yeesho cadceed oo kale, wajiga inay cadceed qabatay oo kale. waxaad taabanaysaa control shift N markaad taabatid boxkan ayaa soo baxay. okay ayaad leedahay. waad ku dhufanaysaa. waxaad dooranaysaa brush toolka. waxaad ka dhigaysaa 10. opacityga 10 ayaad ka dhigaysaa. halkaas ayaad ka bedelaysaa. kanna waxaad select garanaysaa halkaa. kadib dhowr jeer ayaad ku dhufanaysaa foolka.
dhowr jeer ayaad ku dhufanaysaa daamanka, labada daamood hoos garka dhowr jeer ku dhufanaysaa, sanka iyo geesihiisa ayaad ku dhufanaysaa. kadib halkan ayaad imanaysaa normal meesha ayaad waxaad leedahay overlay. waa aragtan haddii aan off ka dhigo iyo on, waa ka lightkaas yar aad arkaysaan wuxuu siinayaa wejiga nuur. waxaa loo baahan marka halkaas intaa dhamaysid waxaad sameynaysaa select ayaa leedahay. markaa select garaysid control E ayaad taabanaysaa. control E markaad taabato waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa filter ayaad tagaysaa. filter kadib waxaad leedahay high pass, other ayaad ku dhufanaysaa. high pass ayaad ku dhufanaysaa, meesha 6 ayaad ka dhigaysaa. kadib okay ayaad leedahay. halkan ayaad imanaysaa overlay ayaad leedahay. sawirka waa ka wuxuu kusoo baxay fantastic. marka hadda waxaad sameynaysaa export inaad dhehdeed u baahan tahay oo sawirkan aad ku shubato Facebook ama telefonkaaga. file ayaad tagaysaa, export ayaad leedahay, export as, kadib export ayaad leedahay. meesha doonto ayaad ku sawiraysaa, meesha doonto ayaad ku save garaysanaysaa. magac ayaad u bixinaysaa, magaca doonto ku qor tusaaleyn